mujaahid maxamed haybe maxamed oo ka mid ah dallada horumarinta waxbarashada iyo deegaanka ee Marso ayaa maanta safar ku gaadhay deegaamada Hallo iyo Kalwaraabe oo ka mid ah deegaamada hoos yimaada degmada Sheikh ee gobolka Saaxil sidoo kalena waxa uu mujaahidku deegaamadaasi gaarsiiyay qalab kala duwan isla markaana ugu deeqay deegaamadaasi geesta kale waxa uu kormeer indhan iyo urkurgalida ku sameeyay ceelka faca weyn Hallo masaajidka Hallo iyo wadada isku xidha deegaamadaasi iyo degmada sheikh gobolka Saaxil oo dhamaantood bay ka muuqda dayac fara badan isla markaana u baahan in wax laga qabto waxaana ugu horeyntii halkaasi kala hadlay dadweynaha ku dhaqnaa deegaamadaasi oo uga mahad celiyay soo dhaweynta diiran u sameeyeen horta maanta anuu baa kaligeed ku soo noqday xogaa sanad jaariyo ciyaalkeygii oo aan ka soo qaaday wadaad oo dhar dumar iyo ciyaal u badan waxaan gaas iyo xogaa kabaa iyo qaar kale iyaguna plastic oo kuwi buurta iyo loogu talagalay in ceelka laga shaqeeyo ayaan idin soo qaaday waxa kale aan idin soo qaaday laba kaariyoone oo loogu talagalay in ceelka iyo eriisa mar walba kaga shaqeystaan imka qura maaha oo mumka waxa la soo sheegay in jilaalkii wadadii ay goysayna booyadii mareen oo ay goonayda wati ilaa halka joogtay laakiin de shaqadiina kale kaga sii badanaysa marka waa saddex majrafadood iyo saddex madaraq iyo saddex farageeto oo geetada ceelka gudihiisa lagu talagalay wixii uu sanadii wata oo laga dhex gali jiray iyo dhirtan xidhay xayaabada iyo inaas kaga goystaan intaas waa anfacaysaa inta waan ku wareejinaya waxaan kale waa dhar iyo kabo waxaan kaas weeyaan dumarka iyo dharka iyo ciyaalka ay u badan yihiin wixii de rag idin ka gaadhana wixii de numberkooda qaad in ay de saarayaan culayska ugu weyn marka degmadeen iyo gobolka labadaba waan kula eersanaynaa wadooyinkaas laakiin intan arska wuxuu qabsadeynay idinkuna de sadaqa jaariina ay loobinay arigii u diyaar garoobade wixii la hayaano kale waa wax yar imka anaga qof soconay wixii aan kari kareynay idin keenayna walina waa la ururinayaa hawshii oo lacagtii de ceelka hadii aynu hay'adaha iyo dawladda la kaashanana aynu ka soo horeeyaan de nasiibkeena waynu arkay gabagabadii waxa halkaas iyaguna hadalla mahadnaq u badan ka soo jeediyay qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgar deegaamadaasi oo u mahadnaqay cid kasta oo gacan ka siinaysa sidii loo dayactiri lahaa ceelka Hallood iyo goobaha tirada badan ay soo xusnay iyo kabaha iyo maxaan ku dhahaa madaraayibta iyo kaariyonayaasha aan kala wareegnay si wacan baan idinka gudoominay waa idin salaamayna dharka dumarka oo jawaanka ku jira oo boqol shay lagu meelahaas waa ka gudoominay si wacan baan ayay u keeneen si wacan baan uga galbeedka sheikh ma aragtay walaalayaal waa aragtaan ceelkii u baabay ma aragtay sarkiisa waa aragtaan ma aragtay ceelka intaas 5,000 oo neef ba ka caba ma aragtay waqtiga qura maalinta kaliya 5,000 oo neef geel iyo ari iyo lo inta soo baabayna waa aragtaan annaguna ma aragtay wixii taalka iyo diyaar baan u leenahay waxaanu leenahay qurba joogta iyo ma aragtay dadka insha Allah way idinkuna waxa nooga qaban kartaa deena nooga qabataan baan idinka baahanay oo nala qabataan annaguna wixii taalkayga waan ka qabanaynaa dhamaantii inamada noo keenay alaabta waan u ducaynayaa si fiican baan ugu ducaynayaa ducada markaan u duceeyo waanu ka gudoominay alaabta si fiican baan uga gudoominay waa maxamed cali axmed maxamed kaabe telefishinka caalamiga ee badcas magaalada sheikh ee gobolka Saaxil